halkaas waxaan kusoo fahnay qaabka loo sameeyo design iyadoo la isticmaalayo template. haddeerta waxaan isticmaali doonaa inaan soo furano qayb cusub, qaybtaasoo markaa ku sameynayno design aan kusoo bilaabino from scratch inagoo doonayno inaan ku fahanno dhammaan mawduucyada ugu muhiimsan ee tahay inaan barano. marka ugu horeysa waxaa sameynaysaa create a design ayaa sameynaysaa, kadib waxaa dhehaysaa sidaa hore usoo sharxay custom size cabir adiga ayaa sameysanayo. so waxaa dhehaynaa meeshaan 200 oo pixel iyo 200 oo pixel ayaan dhehaynaa. so meeshaan marka waxaa la sameynayaa create new design ayaa dhehaysaa, oo waxaa lu siin doonaa meel banaan oo waxba aysan ku qornayn. waxaa rabaa inaan ku fahanno tools uu leeyahay iyo waxyaalaha uu leeyahay Canva inaan ku isticmaalno. so waxaa ka mid ah number 1 wuxuu leeyahay design qaybtan waxaa waaye qaybta hadda aan soo sharxnay waan hadda soo sameynay qaybtaas oo ah in templates ay ka helaysid logooyin, postero, graph يعني video يعني waxyaalo aad u badan يعني infographics wax waliba ayaa ka helaysaa. so haddaa u baahan tahay logo, haddaa u baahan tahay logada ka helaysaa. logada neectaa u sheegaysaa AI logo kale, logo labada xarf logada u baahan tahay, wax waliba aad markaas u baahan tahay meesha ay ku qoraysaa, kadib waa lagu siinayaa logada u baahan tahay. haddii u baahan tahay tusaale kale PC logo oo kale waa lagu siinaa iyadana PC logo baa dhehaysaa, PC logo oo PC ah ayaa lagu siin doonaa. marka waxyaalahan waa templateski aan soo sheegnay waxa uu yahay. marka logooyinka qayb gaaran ku sharxi doonaa, balse aan isla fiirino qaybahan kale. elementiska marka waa kuwana. elementiska waxaa ku jira waxyaalo aad iyo aad u badan oo si fiican ay tahay inaad fahansan tahay, aanan si fiican ugu fiirsato. okay, number 1 wuxuu qaybta sare soo saari doonaa waxyaalaha ugu muhiimsan, balse si toos ah u fiirinaynaa. shapeska waxaa waaye shapes kala duwan, waxaa dhehaynaa see all, wuxuu ku siinayaa intaanu shapes. calaamadahan oo isticmaali kartaa, waxaa isticmaali kartaa waxaanu shape ayaa isticmaali kartaa, oo waxaa samayn kartaa calaamadahan aad u baahan tahay soo daraajareynaysaa, meeshan ayaa soo dhigaysaa. okay, click unbaa ku siinaysaa inta badan waxaa weeyaan hoonu kuu soo baxaya isla markii soo ujeeda isla markii ayuu soo baxaya. haddaa rabtid inaad deleted dhammaanaad dooran kartaa, ama waxaa samayn kartaa hal u dooran kartaa, click aad kusii kartaa oo waad delete kartaa. haddii aad u baahan tahay inaad yareysid dabcan wax kale uma baahnid, just size-ka ayaa bedelaysaa oo wuxuu ku siinayaa properties aad u badan. properties unbaa isticmaalaynaa. okay, so waxyaalahan kaloo dheeraadta u jitaan delete iyo align page iyo soo kale waxyaalo badan uu leeyahay. oo align page waxaa samayn kartaa inaad qaybta lifti ay geysid liftiya, kadib waxaa dhihi kartaa haddaa u baahan tahay top qaybta sare, align waxaa dhihi kartaa qaybta top ayaa dhihi kartaa, qaybta sare ayaa la geyn doonaa. marka sidoo kale waxaa samayn kartaa log inaad saartid oo inaan la dooran karin, oo hadhow markii isaan loo doorto log inuu saaran yahay ayuu caddeyn doonaa, login waa laga qaadi karaa. sidoo kale waxaa samayn kartaa comment ayaa ku darsan kartaa, waxaa dhihi kartaa kan waa arrow tilmaamaysa camal aa dhihi kartaa, tilmaamaysa wax uun. okay, waxay tilmaamaysaa sidaas adi. marka waxaa dhihi kartaa send oo comment ahaan, marka halkaas kasoo noqon doonaa saa ujeedaan. marka waxyaalahaasoo dhan features ayuu leeyahay. marka sidoo kale wuxuu leeyahay featurekan aad ku muhiima ah oo ah duplicate-ka, oo markaad dooratid plus ayaa samayn kartaa. duplicate waxaa waa mid kale ayuu sameynaa. marka si fudud Canvas aa ujeedaan aad u fudud yahay toolskiisa iyo waxa la isticmaalayo. okay, meeshaan marka waa meesha designka mar walba lagu sameynayo, oo meeshaan waxay leedahay features kala duwan. iyadana waxaad ku soo darsan kartaa meel kale, waxaad dhihi kartaa add page ayaa ku samayn kartaa saa ujeedaa add page. sidoo kale iyadana waxay leedahay duplicate, sidoo kale waxay leedahay delete inaad ku samayn kartid. okay, so qaybtan waxaa waaye iyadana add page camal weeyaan. sidoo kale page waxaa samayn kartaa zoom in iyo zoom out adigoo markaa isticmaalaya slidekaas. sidoo kale page-kan waxaa samayn kartaa inaad sameysid pages badan markay yihiin add pages badan markaa sameeyo. waxaa ka bedeli karaa magaca u baahanahay, kan waa kan saddexaad oo kale. marka hadhow magac saxana u baxsanaysaa, balse haddii aan magaca aan u bixiyo kadibna background dhehta aan ka bedelo maybe, so waxaa arkaynaa inay yihiin saa ujeedaan 3 xabo. so 3 xabo hadday yihiin tusaale kale waxaa samayn kartaa qaybtan thumbnail view ayaa ku dhufanaysaa, waxaa lagu siinaya sidaan oo kale ayaa markaa arki kartaa inay kugu soo baxdo. sidoo kale waxaa samayn kartaa grid view oo sidaan oo kale ayay noqonayaan. sidoo kale waxaa samayn karnaa inaa full aan ka dhigno shaashadaran ayuu wada qaadan doonaa, iyadana waa la isticmaalaa. sidoo kale qayb live ayaa jiro saa ujeedaa interactive creations with Canva ayaa jirto, iyo qayb oo magic shortcuts ah. okay, waan ka gudbaynaa qaybaha. waxaan isla arkaynaa markaa toolka kale. toolkan kale waxaa waaye shapeska markaa kasoo tagno waxyaalo kale ayaa ku jiro. waxaa ka mid ah graphicskan oo saa ujeedaan waxyaalihii ayaa ku jiro, sida locationka, numberka, waxyaalahaas oo dhan aa ku jiro.
sidoo kale waxyaalo features kala duwan gradient-yadana ku jira. So all of this marka waxaa waaye mid inaa u fiirisid weeyaan sidaa markaas u fahantid mid waliba. So waxaa kaloo ugu muhiimsan qaybtan oo AI image generation-kana oo image adi aa u baahantaa samaysan kartaa. Tusaale kale generate your own image. Waxaa dhihi karaa tusaale kale make a man. So tusaale kale waxaa dhihi karaa Somali man wearing shorts and underwear with the jeans. Okay, so marka nin Somali oo buumo surwaal xiran un baan ahay, shaati buumo iyo surwaal xiran un baan ahay jeans. So markuu sameynayaa sawiraan 4 xabo camal uu sameynaa, adaana markaa sawirkii kasii dooranaysa. Ujeedaan sawir caadi uu sameeyey sa ujeedaan nin Somali camal ah oo wato shaar kadibna wato surwaal jeans. So sawirka aragtida samaysan kartaa oo aday ku xirantaa sawirka markaa u baahan tahay. Waxaa dhihi kartaa tusaale kale women buying groceries. Maybe I forget groceries. Okay, buying gold in Somalia. naagta markaas dahabka iibinaysa Soomaaliya amni waaye dahabka markii lagu iibinayo dabcan. So dadka banaanka iska fadhiyaan dahabkooda si tartiib is iibsanayaan. Marka intaas waaye qaabka u generate-gareynaysa. Marka inta badan waxaa isticmaalaysaa wuxuu usoo saaray qaab hore camal markaasaa ujeedaan naaga Soomaali camal u eg. So kuwaasoo markaasi generate yani iibinayo dahab saa ujeedaan. Okay, marse qaybtan waa qaybaha aad ugu fiican ee Canva uu leeyahay, waana free. uma baahnid qaybta inay iibsatid. Marka aan ka socono AI image generation-ka oo ah mid ka mid ah feature-ada ani ahaan aadkaan markaas u jeclahay dabcan aadkan u muhiimka ah. So qayb waxaa jira stickers isticmaali karta, qayb footooyin sawira. qaybta marka sawirada ayaa iyadana muhiima. iyadana qaybtan sawirada sawiraan kala sii raadsan kartaa, sawiro caadi ah oo AI uusan sameynin oo dad caadi ah saa ujeedaan sawiro si caadi ah oo markaas aa isticmaali karta. tusaale kale man holding laptop, qof laptop wada ayaa u baahan tahay, waxaa dhehaysaa man holding laptop. So inta badan waxaa isticmaalaysaa haddaa ingiriiska si fiican oo u fiicneen waxaa isticmaali kartaa ChatGPT asaa markaa ingiriis ku siinaya. So sawiraantan laakiin intooda badan waxay yihiin kuwa markaa lacag ah, laakiin qaar ayaa markaa free ah. sida kanoo kale hadda free weeyaan, kanoo kale free waa, laakiin kuwa pro ay ku qoran tahay waa kuwa lacag ah. Okay, so kanoo kale haddana free waa saa ujeedaan. all of this marka waxaa waaye kuwa free ah. Marka dhamaan haddii aad daleedna marka waxaa filaya qaybtan iyadana inaa fahanteen oo photos ama sawiraanta loo isticmaalo. qayb waxaa jira charts ah oo aan soo sheegaynay dabcan infographic ka mid yahay. tableska qayb waxaa jira marka frameska waa maxay marka loo baahan yahay in la sameeyo clip mask oo sawir in wax la dhex geliyo kale. tusaale hadda waxaa soo dooranaya tusaale kale sawirkaana soo doortay. sawirkan haddaa u baahanahay inaa maybe sawirkan dheh. so sawirkaana soo doortay, waxaa u baahanahay sawirka inaa clip mask aa geliyo aan shape wareeg aan geliyo. marka shape ma soo qaadanaysid waxaa soo qaadanaysaa framekan ay soo qaadanaysaa. so framekan wareega unbaa soo qaadanaysaa. so framekan wareega hadhow waxaa sameynaysaa sawirkii aa dhex gelinaysaa like that. Okay, saasoo kale aa u dhex gelinaysaa. mujeda haddaa mar kale si tartiib aan u celiyo frameka waa kana qaybta wuxuu ku jiraa elements ayuu ku dhex jiraa. so framekan soo qaadanaysaa meeshaana keenaysaa. so sawirka ama ka gadaal maro ama ka hor maro ama wuxuu rabaa hada, laakiin si walba ku aadinaysaa si toos automatically marka sawirkaas uu u dhex geli doonaa. marka waxaan filayaa inaad si fiican fahanteen qaybta markaa clip maskiga oo aan si fudud u sharxay. qaybahan markaa mockup isu leeyahay oo aad u muhiim iyadana I like it. marka qaybtan aad u fiican tahay mockup-iska. so easily aad u fudud aa mockup u samayn kartaa. tusaale kale mockup oo haddaa u baahan tahay design oo kale, mockup oo billboard oo kale, whatever you need marka horaan ka samayn kartaa. tusaale kale mockupkan oo kale click out tusinaysaa sorry inta badan drag and drop baahan. marka click out siiyey sorry waa yara badiyey. marka waxaa sameynaa waa weyneynaa. okay, so marka designka meeshaas la gelinaa, mockupka meeshaas la gelinaa, ama mockupkan kale isticmaali kartaa ama mockupkan kale isticmaali kartaa whatever. so hadhow waxaa u baahan tahay sawirka inaad soo geliso keliya. so hadda mockup waxaa isticmaalaa kanoo kale isticmaali doonaa. waxaa sameynaa sawirka hadda aa sameeyey designka hadda aa sameeyaa soo gelinaa oo kale. so designka hadda waa kana marka waxaa rabaa inaa dhex geliyo oo ku aadinaa oo keliya saas oo kale
si toos ah waa la wareejinaa wareeg yani just refresh body uu dhahaya kadibna hore ayuu ka geli doonaa okay marka elementiska intaas ugu muhiimsan ayaa isleeyahay oo intaas haddii aad ka fahantay waxyaala aad u badan ayaa ka fahansan tahay marka hadda saa ujeedaan waxaa la dhexgeliyey modabkaas ayaa la dhexgeliyey okay t-shirti modabyo badan uu leeyahay iyadana waa isticmaali kartaa marka collectionkaana waa sii fiirinaysaa waxyaalo kale ay kusii dhex jiro marka halkaas ayaan ugu gudbaya qaybta elementiska waxaan fiirinaa qaybta marka qoraalada so qaybta qoraalada iyada aad ay u muhiim tahay inaad si fiican fahansan tahay so qoraalada marka touchasti ayaa soo dooranaysaa wuxuu soo saari doonaa qaybtan waxay leedahay qayb headina subheadina iyo sidoo kale touchasti caadi ah tusaale kale ciwaana waxaad samayn kartaa inaad aadid canva course canva let me say canva course okay so canva course ayuu markaa tusinaa so qaybtan wuxuu leeyahay sidoo kale canva coursekan markaa wax qortidaan ka hadla qoraalka wuxuu leeyahay qayb AI ah oo aad ku dhufanaysa loo yaqaano magic writing waa ku dhufanaysaa wuxuu ku siinaa waxyaalahan waxaad samayn kartaa in waxaan dib u qortid haddii wax kaa qaldiyin custom prompt wuxuu leeyahay waxyaala aad sii sheegi kartid continue writing ah marka waxaa dhihi kartaa tusaale kale easy qoro waxaa dhihi kartaa continue writing waxaa sameynaya inuu kuu sii qoro waxaan leenahay continue writing waa noo sii qori doonaa oo markaa trade qoraal yar oo kusii dari doonaa insert adhes haddaa u baahan tahay inaad qoraalkan qaadid haddii kale markaa iska dhaafi kartaa maadaama option luu siiyey marka maadaama option loo siiyey insert aa dhahay marka qoraalkii hadda ugu weynaaday cut ayaa dhihi doonaa waxaa u bedeli doonaa qoraal yar ayaa u bedeli doonaa paste ayaan ku siinayaa soo jeeda qoraalkan yar ayaa u bedeli marka canva ayuu ka hadlo keliya canva ayuu markaas qoraal yar ka sameeyey hadda qoraalka waa kana marka qoraalada yar yar waxaa isticmaalaysaa title kaas ay isticmaalaysaa marka alignment ayaa toosin doonaa waxaa dhihi doonaa align lefty kadib waan dooranaya kadibna sidan ayaa markaa u toosin doonaa so cabirka waa sii yareyn kartaa muhiim maahan markaa cabirkaas aad dooratid inuu cabirkaas aado marka hadda waxaa sameeyey qoraal iyo sidoo kale waxaa sameeyey title qoraalada saana u soo sikinaysa haddaa u baahan tahay adoo isticmaalay kan ayaa isticmaalaysa shaygan oo labada dhinac ayaa isticmaalaysaa qaybta waxaa samayn karaa subtitlekana dooran karaa waxaa dhihi karaa full course mujida design aad saan ku sameynoonaa oo markaa aad markaasi qoraaladii wax walbaa sameynoonaa hadhow design qurux badan waa samayn kartaa so dhammaanaa dooran karnaa inagoo markaa alignka hagaajinayno marka saa ujeeda waxaa sameynayna align dhinacan ayaa ka dhidhnay so like that okay marka saana loo sameeya qoraalada marka laga hadlaa kalarkana waxa weeyaan qaybta unbaa laga bedelaa oo kalarkii oo kale isaana saa ujeedaan so kalarka qaabkaas uba u bedelaysaa easy way waaye wax aad u dhib badan maaha qaybta kalarka aad u fududahay okay so qoraalada marka qaabkan loo isticmaalaa waa maxay qaybtan kale qaybtan waxaa waa marka template isku diyaarsan templateadana iyadana isticmaali kartaa waa kuwa aad u fiican iyadana markaasi in la isticmaalo template wax kale uma baahnid waad soo qaadanaysaa oo keliya waa bedelaysaa oo waxbaa ka bedbedelaysaa qeybo waxaa jira free iyo qeybo lacag ayaa jiro so qeybaha freeda isticmaali kartaa kanoo kale hadda free waaye so saa ujeed template aad qurux badan waa waxaa dhihi kartaa design in canva waxaa dhihi karnaa in canva iyadoo sidoo kale aan bedeli karno qoraalka oo yani kalarkan ka hadlaa kalarka waa bedeli karnaa ininka markaa kalarka tusaalo kale waxaa isticmaali karnaa cadaan iyo kalarkaas kale isticmaali karnaa ama labadan kalar oo kale okay so like that sidaas waaye markaa kuwa marka qoraalada noocan oo kale haddaa u baahan tahay si fudud meeshaan ka soo qaadanaysaa so intaa marka qaybta qoraalka waa haddii aan kasoo socono qaybta marka uploadka waa idin soo sharxay dabcan meeshaan draw waaye draw marka haddii laptopkaada qalin uu leeyahay waa isticmaali kartaa so drawinka aad u muhiim yahay waa isticmaali kartaa waxyaala badan uu leeyahay saa ujeedaan qalinka iyo kalarka meesha laga bedelayo oo kalarka aad doonaysa aad kala dhigi kartaa kadibna qalinka aad isticmaali kartaa so qaybtan waxaa benefit ama faa'iidada leedahay waxaa ka mid ah waxyaala aad u badan inaad u samayn karto so qaybtan waxaad ka bedelaysaa cabirka oo yani aad hadaa u weynaya aad u weynaanaa saa ujeedid haddaa yareeyana wuu yaraanaa qaybta cabirkan ka hadlaa so like that okay so aad hadaa u yareeya xitaa aad ayuu u yaraanaa sidaas kale marka beenka looma badna ama darow aan dhehe looma badna laakiin dad qaar hadday haystaan laptop markaasi leh mid loo yaqaano justy wax yani qalin leh tusaalo kale qalinkaas way isticmaali karaan okay so intaasa u gudbi doonaa qeybaha basicska la isticmaalayo
waxaan rajeynayaa inaad si fiican fahanteen qaybta basicska oo aad sidoo kale aad fahanteen qaybta markaasi loo isticmaalo templateska. Marka waxaan u gudbaynaa qaybaha kale ee Chorus Canva.